هو محاتيريا ماي ارتي مديني دايساي ماهينو حفايدة كوفي بيبي كوفي بيبي ساني المها اوغا قصل لسا أريان أنا دوالي هيدا نوايا هورتان مركان تلكان حالتي سسفي عنو قيمي waxay u soo baxdeen in madaxweyne iska noqdo waliba idinkana waxaan idin kala talinayaa qabyaalada iska dhaafa waa qurune oo haddaydnaan iska dhaafayn qabiilkayga noqda waxaa tahay persona non grate mana tihi shakhsi u qalmaa hogaanka dalkan waryaalahan arrin waale hayadaha qoladii aan jaarka nahayn waxay noqdeen bacalul isqaaday marka waxaana qaadayaan heestii ahayd badcabnay badqubnay badna waan ku maydhanay baranay midnimadeena oo u soo baraarugnay baabay qaadayaan qoladan United Nationskiina waxay qaadayaan war maanigaan roor ahayn marimadii ka soo dhacday baa run sheegahayn Somalilandna waxay leedahay ergey gaara oo annaga noo khaas ah hadan Somaliland nahay hana loo soo magacaabo ilaa u taagelimayno kolba mid ay malmaluuqsadaan eeryaane warana ayda waale hayadaha arciil day arceeb day cidii oo loo noqon doonin day oo cadow baxsaday oo la ceeriyaday warnimayo horaad u waaleydeen ayaan leedin waaline waxa la yiri dalkan kama shaqayn karo qofkii wada shaqaaqayna shatigii Nicholas Haysom iyo shaarkii laga jeexay shakhsigii bedelayay u tahay sheed ku soo go'an sharci baa xafiiskii dhaxyaa loo sharaxayay faragelin shisheeyana rag waa inuu sharaystaaye ku shukriya hadduu dawladnimo galeeshinkeedii walaalayaal haddaan anagu nahay Somaliland ninka shaqada waayay ee Haysom adeer hana loo soo magacaabo annaga ha shaqaystee waa bil amal war nabadii nool intay jirtay madaxweynihii Hirshabeelle cusub dadka qaaday gudoomiye gobolka Taabid waa la tuuray gudoomiye baarlamaanka Jawaari waa la iri madaxweynihii Koonfur Galbeedna Shariif Xasan Arga loo tuuray wasiir badan ay kamid yihiin Juxay Yusuf Garaadna urda loo qaaday urgigii qaramada midooban Haysom mushaarabaha laga fiiqay kadibna waa la musaafirey waxa la ribaayada nool dhaaf marka waxaan leeyahay cidii isku taagtaa ka fiirsatay war nabadii nolol intaasoo shaqaha ay qabatay haddana 15 bay weli ma dhaafin war Yusuf Garaad wuxuu yiri dawladda rabitaankeeda hadii qaramada midooban ay ka aqbashay yaa ismahadin ay isu diyaariso saameynta ka dhalan doonto warnimada waxa la yiri waayahan ba hadal beenahay noo harfurayeen hadday timid xaqiiqdii hartiyo hubantideedii ninkii hawl ka sugayo kulay haysan watig horamaylan aray lanki daanjar aanu ku fadaw fool yawla tusaka guursato warnimada waxaan leeyahay shacbiga hal kala dilo dalkan hal qaybiyo dalaal loo soo diriyo daandaansiyo idib dariyo dulligii isticmaalku waday haddaan diidno bulshooy dan guud u jibaysanahay daaim baa mahad iska leh qorshaha wadataa saaxiib hadalkaadan ka dareemay wardada umay leeray adduunyada dulun iyoonay daalunga dareera lamadii is dooratoon walshal dile hooba dogi isku buriyni oo isku duwanaani daa'ir rahmaan ee mahad leh in kastoona luuqadaad ku hadlaysa fahmin adiga laftaadu qorshaha wadataa anigu waxaan leeyahay qisada aad aragtaaba qadartii rabbiga iyo quwadday ku tustaa qofka aan ku qancayna qiil uma heli doono beri yoon qiyaame warnimada wariya dhammaantiis xogayaha guud ee qaramada midoobay war buu soo saaray wuxuu yiri Nicholas Haysom waan ku kalsoonaa shaqada uu hayana khibrad buu u lahaa qaramada midoobeyna wuu u shaqayn doonaa persona non grata looma isticmaali karo wakiilka qaramada midoobay waxa loo isticmaalaa safiirada dawladuhu dirsadaan ugu dambaysna wuxuu yiri dawladda Soomaaliya waan ka roonaanaynaa maadaama ay go'aanka ku degdegtay waana ka bedelaynaa marka waxaan la yaabana midka lagu soo bedelayaa muxuu uga duunaan doonaa Antonio Guterres waan ku kalsooneen hadalkiisana waan soo dhaweynaynaa cid uu noo keenana waan ciiri doonaa haddii ay noqdaan sidii Haysom aryadaha waxaa la yiri bilcaantii xiiska beeshay owr dawla buubo wuu begta bilcaantii xiiska beeshay owr dawla buubo wuu begta waxaan ka
ka wadaa inkastoo go'aankeennu kadis degdega ahay haddana haddii la aqbalay inaan dawlad qotontan nahay amahaas iiga cadowaa u bega war nin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa shalay fadhi ku diri soo fadhiistay waxa uu yidhi haysam inuu baxo inuu khayro baxo ayaa ii dhaantay nin kale wuxuu yidhi war qaramada midoobay ma bixine haysam keliya baxay markaasuu wuxuu yidhi aniguba dawladda dhan ha baxdo ma dhihine khayro keliya ha baxaan idhi haddama waxaa leedaha beesha lixaad qaranka matalaadku ma laha waryaada dhegaysta nin degdegay nin dheelalun la yaab waana daw jira waxba ha u dardaari warin midnimo waa la daaficiye warnimayo waxaan maqlay gaalka ayaa waxaa lagu samaynayaa filim la yidhaahdo car itaabo anugu waxaan idhihi lahaa ninna qoriguu jabiyo qajacdiisa kama naxo war adeero dhegaysta gaalkacayo marka hal guddoomiye u yeeshaan annaga nala soo hadla markaasa hargeysa iyo muqdisho hal madaxweyne ay yeelan doontaa warnimayo doorashadii buntland musharaxiintii tartamaysay shuruudaha lagu xidhay waxaa la yidhi waa inuu 40 sano ka weyn yahay musharax waa inaan maxkamadu dembi ku helin waa inuu 20,000 oo dollar oo isdiiwaangelina bixiyaa shuruudaha markii la soo saarana waa kuwii 30 ahaaye kala bar baa ka baxay musharaxnimadii war aan helmaynku baha waaye aan haano dembiile oo isaagal iyo madbirkaansay madaw ku yiiray waan rinjeeya ka jaraana warnimayo musharaxiinta puntland shaybaarkii lagu baaray wuxuu sheegay inay laba qaybood kale yihiin cabdiweli gaas iyo juxa iyo waxay wataan waa dhinac afar kaloo shaybaarku sheegay iyo madaxweynihii hore faroole iyo waxay wataanna waa dhinac hadda baaristii la sameeyey qaar ka mida jeebabkooda waraaqadii nabad iyo nolol baa laga helay marka waxaan anugu ku darayaa guddoomiye dhooba la yidhaahday shala doorteen jamiite iyo dhagaxna madaxweyne iyo ku-xigeenha ka dhigteen si uu dalku u dhismo war musharaxiinta waxaa ku jira jebiye waxay dhisaan isagaa jebinaya warnimiyo aan may koobsa gabe madaxweyne haaf hooble labjay libadi inoo buntlandka darama hirshabeelle madi labjay libadi nibadi lolaka darantay aryaxaad hirshabeelle ka sheega koonfur galbeedba iyadoo jubbaland ku darsami rabta in laga soo celshaa lafta gareen la geeyo asaa nabadyo nolol lagu soo celshe warnimay waxaa la yidhi fakarkii qaldani uunka waa kala fogeeyaaye siyaasado fashilay oo qabiil fuushan guradiisa waxba ha uga faallayn bulshadu fiirin mahayaan war asee sheekh axmed madoobe maanta dhoolatus militari u sameeyey ma ka cararteen ee magaaladii war weliba waa lama soo gaarin warka sug oraada kismaayo wuxuu isdaba dhigi wax alla wixii cabdibili luuq ku jiray wuxuuna yidhi dhoolatuska militari waa mid jubbaland u gaar ah hal askiroo dawlad soomaaliya kuma jiro haddana naguma baahan annagaa isku tashanay war axmed madoobe wuxuu rabaa inuu yidhaha bu'aalaan qabsaday dawladda soomaaliyana waxay rabtaa inay bu'aala qabsato oo doorashada jubbaland bu'aala ka dhacdo aryaadhaha war ma haysiina cudurkii maamul goboleedyada hay jiraa aqalkii sare nooga dhacay maamul goboleedyadu waa kuwii dhaheen wada shaqayntii dawladda waa hakinnay aqalkii sarena wuxuu yidhi wada shaqayntii golaha shacabka waa hakinnay hadda dawladduba waa tii raacdaysay haysan waa lees wada hakihaa mugga war aqalka sare oday nabadoona madax ka ahay ama laga dabageeyey war odayaalka walaha dabarooga aman dheera siinqarian war oday madax cad oo waaye araga dawladda cabdi xaashiya uga jira meesha in laga saaraana waa ku jirtaa marka waxaan u malaynayaa in odaga loo socdo meesha laga saari rabo war mafiqiga ku bedel rabaan cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer miyaa mugga war wakhtigii waayeelka lama jooganiyo wakhtigii ciyaalkana lama jooganiyo persone non grado barsoone nin geesa leh wareedaha shaqada waddanka taallaa waa tiro badan tahay adinku maxantaad ku yeelateen dalka maxaad u qabataan luguhantaa lugu hasuustay dheheen warniyo warba haysaano dhowdhowdunbaa meesha ka haysaane ishilqaankii amasoon baa iminka dhinaca ka gashay aryaadhaha dalkan ununkaale ciddi dulmi ka haysanay inaan diidno la dakdakro xaqaan u leenna wareha dadka maxaa loo dila qofkii yidhaha ma la cayrinaya weliba in la dilay ahaydaas xaanan u samayn sojamajaariji bajaalijire war amasoontu waa dagarkan baahan kan halow isay garaac wariya garaac warna ka tagaa daaniya bandil ma daysid wariya garaac naga taga meel bugta tage